السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. salaan aad iyo aad u qaaliya ayaan idiin soo dirayaa dhammaanba walaalaha qaaliga ah ee igu xidhan janankeena Fatima is Lifestyle channel. insha Allah waa salaad hore hadalka waa la gaagaabinayaa, waa la wada hurdaa aqalka. naftaydan saaka usoo diyaarsaday alaabadan iyo nafaha kale ee aqalka joogaba hadday yar iyo weynba yihiin insha Allah biidnillaahi raxmaan, iyo siyaabaha loo isticmaalayo iyo waxay tarayaan ayaan rabaa inaan idinka faa'iideeyo. alaabadan aad arkaysaan waxaa lagaga hortaga hargabka. markuu hargabka qofka bini'aadanka ahayo waa fishtig inuu cabo saddexda waqtiba sidii shaaha uu cabo biidnillaahi raxmaan. waxay nagu soo kordhay hadda ilaahay haynaga hayo, qof kasta oo muslimaba allaha ka hayo. inkastoo la yidhiday 70% wadanka Deutschland ay wasiiradu ka dhawaajisay 70% qof kasta oo ku nool wadanka Jarmalka bay tiraan wadamada kale waa ogin, allahu aclam, ilaahay baa og. taana ma rumaysni anigu iyo ilaahay baan rumaysanahay 70% ayuu ku dhacayaa bay tiri. waay sababta ay tahay horta wuxuu wax sahlanba maaha, inkastoo dadku leeyihiin waa iska normaal, waa iska caadi, waa hargab, allahu aclam wuxuu yahay, ilaahay baa og, allana ha naga qabto. 70% wuu ku dhacayaa bay tiri, inta kalena inay fayoobaadaan baa laga yaabaa. marka ilaahay subxaana watacaala ha naga hayo, gacan birana allah ha nagaga hayo ilaahay subxaana watacaala. inta haddaan kaga imaado waxaa jira waxani horta waa sanbabadaadu gelayaa. waxaad u kala qaadaysaa horta siyaabaha lagu kala qaadayo insha Allah waan soo gelin doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan leh. waxaa la yidhi prevention is better than cure, waxa oo ingiriisku ku mahmaha ka hortaga waxaa ka khayr badan daaweynta. marka hore Allah subxaana watacaala la kaasho, adkaartaada akhriso, markaad gurigaaga ka baxayso tawakkal cala Allah wabillahi wakiil dheh, Allah subxaana watacaala taladaada u dhiibo. markaad gurigaaga ka baxaysa markaad kusoo noqonaysa inaad muxuu ahayey inaad soo nabad noqon iyo in kale allahu aclam, ilaahay baa og, Allah subxaana watacaala wax iska soo noqosho wanaagsan. telefoonka wuu idin diiday saaka dhan waan kala guraayay, wallaahi waqtigu iga qaatay, iska daabaan isidhi. haddana walaalaha qaaliga ah ayaan isidhi uga faa'iidee. Allah subxaana watacaala adigana ajar iyo xasanaad allah kaaga qoro, iyagana waxaanad wada arkaysaan oo dhan kulli waa wada dawooyin. waa dawooyin uu nabigeena calayhi salaatu wasalaam sheegay baa ku jira, sida toonta maxaad ku samaysanaysaa. haddaba waxaynu hadda u garagalaynaa ka hortagga ama maxaa lagaga hortagi karaa cudurkan xun ee la sheegaya. Allah subxaana watacaala haynaga hayo. horta marka koowaad ilaahay tala saaro, taladu waa ta alle. waayo markaad caloosha hooyada ku jirtay ayaa wax kastaba lagu qoray. ilmaha yar marka hooyadii calooshiisa lagu abuurayo ayuu Allah subxaana watacaala u qoray wuxuu kadbanayo, wuxuu cunayo, halkuu marayo, waxa ku dhacaya, maalinkay noocaatay qadarta noocaasa ku dhacaysa, maalinta noocaa tahay waxaasuu cunaya maalinta. waxaad adigu markaa aad haba yaraatay adigu aad goyn kartaa ma jirto. marka koowaad talada alle u daa. Allah subxaana watacaala talada ilaahay baa leh, talada alle u daa. hataa taabanin qadartu haddii ay kugu dhacdana ha odhanin maxay iigu dhacday qadartani, maxay sidani u dhacday. waxaad tiraahdaa innaa lilaahi wa innaa ilaihi raajicuun. ilaahay baa yidhi marka ay qadartu kugu dhacdo qul dheh uu kugu yidhi innaa lilaahi wa innaa ilaihi raajicuun. aayad qur'aana oo kariima ayaaba sheegaysa. marka insha Allah biidnillaahi raxmaan, markasta oo qadartu ay kugu dhacdo hoogaye ba'aye waxaa lagama rabo. xanuunka la leeyahay coronavirus waa xanuun sidii hargabka oo kale. qofku hadduu yidhaahdo way ku gaadhay neeftiisii, halkaas ayaanad ku qaaday. wuu kala duwan yahay laakiin marxalado fara badan ayuu leeyahay. stage 1, stage 2, stage 3 ilaa stage 4 wuu leeyahay baan malaynayaa. marka ilaahay subxaana watacaala horta haynaga hayo. meel kastoo aynu dunida dacladeeda ka joognaba waxaa muhiim ah inaynu isdhiiri gelino, in aan gacmaha la iska salaamin, in aan muxuu ahayey halkan shabka laysku saarin, inaan qofka bini'aadanka ah uu
1 kilometer ama 2 kilometer aad isku jirtaan barta iska salaantaan salaamullahi calaykum intaasi kugu filan okay isagana ku filan laakiinse haddii intaad soo carato calaamaad shaka u saarto amaba aad gacanta qaado amaba muxuu ahaaye dhamanka aad ka dhunkato say soomaalideenu taqaano wadadooda naxariisa marka waxaan idin leeyahay joojiya alaabtan baan haddaba idiin fasirayaa intaas waa waanadaasina waxay ku socotaa dadka soomaaliya ay fahmaya ee afkayga ku hadlaya insha allah biidnillaahi raxmaan waayo qof kale imaba fahmayo laakiin alaabadan qof kasta wuu garanayaa waxay halkaa waxaa ku jira shaah halkaa waxaa ku jira liin halkaa waxaa ku jirta liin macaan halkaas waxa weeye waa liinta yarayda kale halkani waa liin dhanaan halkani waa toon haddii aad ujeedaan halkan baa haddaba timi labadan meelood ee xagxagan ayaa yimi ee meesha halkana waxaa yaala 2 koob baa yaala halkana waxaa yaala tii isaguna aad u fiican oo ka samaysan bahashan oo aan isku dhoowi jiray laakiin aad u wanaagsan wax kasta oo ka samaysan muxuu ahaayeen ingva ayay dhahdaan doojku waxa weeye sinjibiisha ka samaysan aad iyo aad buu u wanaagsan yahay iyo wuxuu ka samaysan yahay korkon geedka la yidhahdaa waa maxay korkon geedka la dhahaa waxa weeye waa geed ka samaysan huruudeeni wadankeenii taale ayuu ka samaysan yahay marka ma wada isticmaali karo sinjibiishan laakiin wax yar ayaan ka isticmaalayaa geedkan ayaan ku muxuu ahaay xoqaya biidnillaahi raxmaan dabadeedna halkan waxaan soo dhigtay 2 koob baan soo dhigtay labadan koobkan mar hore aan ku shubo oo biiga qaboobay waan qubayaa waayo bahasha ayaa iga buuxsantay marka insha allah biidnillaahi raxmaani raxiim wallaahi videogan inta video duway iigu mayal adkaa weeye wixii raagana khayrku wuu ku jiraa wixii raagana wallaahi kamaan daalin waayo walaalahay ayaan u faa'iideynayaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu dhawaana faa'iido aad u weyntan isaga wallah hadda biyahaygani way qaboobeen biyo kale inaan halkan koobkiiba halkan ii yaala waa inaan biyo kaloo kulul aan biyahana dib aan u saaraa fardirisba kulleyba biyaha lagaa rabaa inaad biyaha aad u kululeyso marka hore iska soo kari dabadeedna yara qabooji insha allah biidnillaahi raxmaan bahasha waxay kuu nadiifinaysaa subaxii salaada hore anigu waxaaban iska isticmaalaaba oo rootiin ii ah inaan liinta ku rito biyaha kulul inaad ku dhex ridato intaan shaqaynayo oo dhan waan iska cabaa waayo enerjigeedu waxaad ka helaysaa energy aan inaba caadi ahayn maalinta oo dhan waad ku shaqaynaysaa maasha allah tabaaraka allah tanna sinjibiishan markaan isdhuubaya ayaan isticmaalaa mar kastana anigu shaahayga waaban ku daraaba shaah bilaa sinjibiila inaan kariyo ma jecli marnaba gurigeyga lagama kariyo asxaabeygu way idiiday aan ka gaadhsiiyo halkan korkonkii iyo sinjibiishii baa ku jira biidnillaahi raxmaan halkani waa shaahii haddii aad rabto waa shaaha wuxuu ka samaysan yahay muxuu ahaa sinjibiil aad iyo aad u wanaagsan yahay subaxdii salaada hore ayaad isticmaalaysaa habeenkii inta aanad sariirtaada tegin oo kale waad isticmaali kartaa uga faa'iiday baan islaasaad isku dardaraysa laakiin qof kastaaba shaahiisa wuu ku ridan karaa karin maysid keliya 2 koob baan halkaa kusoo diyaarsaday 2 koob ayaan ku shubayaa kabacdina liintana wax yar baan ku ridayaa insha allah biidnillaahi raxmaan sinjibiisha in yar baan ku ridayaa liintan kale iyo toontana liintana sideedaan u isticmaalayaa liintani waxay aad ugu fiican tahay subaxii salaada hore waxay kor usoo qaadaysaa muxuu ahaye awoodda